Assalaamu calaykum asxaabay, waa idin salaami meel walba oo aad dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada Oma Masbel Cooking Channel insha Allah. Maanta waxaan wadaa insha Allah bariis si wacan loo kariyey iyo waslad hilib waslad ah, cabitaan maasha Allah maango iyo basbaas aan ka suubiyey, basbaas qajiga cagaarka ah. Marka insha Allah ii soo dhawaada asxaabta qaaliga ah, insha Allah la socod wanaagsan saan u suubiyey. waa kana bariiskii, hilibkiina waa ka, cabitaankii maasha Allah, la socod wanaagsan. marka hore waxaan hagaajinayaa hilibkii. waxaa inta ii yaala hilibkii asaga, iyo waxaa ii yaalo kale waxaan ku dari lahaa waa toon, filfil, cusbo, curry powder iyo paprika, kabsar caleen oo kan shiidan ah, iyo waxaa waaye xawaaji dhudhub iyo ground masala. intaasaan marka waxaan ku dari rabaa saliid canola oil oo iyadana 3 qaada camal ah, meeshaasaan kusoo shubtay. marka hore intaas ayaan isku walaaqayaa si fiican, saasaan iskugu walaaqayaa. markaan isku walaaqo kadib hilibkii aan marinayaa. space yar inaa u suubiso waa hilibka carafka soo hoos ugu galo. markaasaa saasaa u dildilaacinaysaa, waad marinaysaa. marka hilibka saan markii loo kariyo, baruurta hataa kor ka saaran way ka dhalaalaysaa. asaga dhan wuxuu kusoo baxayaa, waxaa kasoo baxaya hilib yar oo aad u macaan maasha Allah, caraf badan. waatana kor iyo hoosaan kasoo mariyey. iyada saasaan ku dhameeyey. marka dhalada aan ku karin lahaa ama weelkaan ku karin lahaa ku dhex ridayaa. aluumiyadaasaa marka hore ku duubayaa, biye dhali doontaa. biyahaas markay dhasho aluumiyadan ka qaadayaa, waxay ku jiraysaa ofinka haddana 30 daqiiqo oo kale. marka hadda ofinka ayaan gelinayaa 350 ofinka. inta ii karaysa inta waxaan ku haystaa 3 koob oo bariis ah. waa soo dhaqaa 3 jeer, weliba aan dhaqayaa biyo qandac ah. waxaan la dhigaa biyo qabow ilaa biyahaas uu kor ka soo maro. aniga mararka qaar 2 saac ama sugaaba, waqtiba hadda marka 1 hour aan sugayaa insha Allah. waa kana hilibkii waa kaas, saliidii dhan way ka baxday maasha Allah, saasuu kusoo baxayaa. waa kaas asxaabay, gudahana saasoo ka noqday maasha Allah. marka asaga saasaan ku dhameeyey. waxaan sameynaa marka bariiska waa kana, waxaan sugay 1 saac iyo 10 daqiiqo. waa kaas hal weyn kusoo baxa qurux. inta waxaan ku haystaa saliid iyo basal, olive oil. intana waxaan ku haystaa 2 qaado oo sokor ah. sokortaa marka karinaya waa taasaa. saas markay soo noqoto, maraq digaag 1 mir ah oo aan ku daray biyo oo aad u kulul oo 2 koob aan ku dhex shubayaa. wax yar oo cusbana way raacsan tahay. maraqiyaan ku shubana, maraq digaagii iyo biyihii iswati iyo 1 yar oo cusbo ah. maasha Allah. saas markuu noqdo bariiskan ku darayaa.
bariiskan ku darayaa. Bariiska markaan ku daro hal koob oo biyo qabowna waa raacin doonaa. asxaabay bariiska saa markii loo kariyo ka macaan badan yahay. dhowr kala duwan oo karsada laakiin kan ka macaan ma arkin. waa kaas hal koob oo biyo qabow saas markuu noqdo ayaan ku darayaa. biyaha intaas inay ka kormaraan waaye. waa kaas uu gursaday weliba koran ku karinayaa ogaanteeda lahaada. saas markuu u gursado saliidii iyo basashii aan kor kaga shubayaa. waxba kuma walaaqayo bariiska walaaqa wuu ku dhintaa saas ku daa iyada isqaadanayso. marka waxaan ku darayaa wax yaroo carfaya waa curry powder, xawaaji dhudhuub iyo kabsar caleen shiidan heel intaasaan kor ugu darayaa. marka waxaa dulduleelyo yaraan u yeelayaa soo carafka markaad daboosho ilaan ovenkan 15 daqiiqo gelin rabaa. wax yar leeb u dhim bariiska already wuu kare. waxaan rabaa caraftaas inuu isla qaato. dulduleel yaraan u yeelayaa marka daboolaa dhab ku siinayaa 350. waxaan geysanaa ovenkii waxaan u daynayaa 15 daqiiqo. intuu meesha igu jira cabitaan aad u macaan maasha Allah. waa 2 xabo oo maanga ah oo aad u jilicsan iyo basbaaska miraha ma rabo. fiiqaas yaraan rabaa go-ayaniiska oo kore. dhadhankiisa maasha Allah ani waa jeclahay. ila tijaabiye insha Allah. waa dhaqay. waxaan ku daraa sokortaas 3 qaado camal oo sokor waaye. 2 koob oo biyo qabow. waa kana basbaaskii cambihii waa soo jarjaray marka waa isku shiidayaa hadda blenderka. istusaya insha Allah. blenderka aadayaan. waa kana maasha Allah. waxaad sameysaa meeshii smoothiga ku sameey insha Allah soo basbaaskaaseeto u baaba'o oo loo arkin si fiican 5 minutes camal. waa kana maasha Allah cabitaanka saas u shubmayaa. maasha Allah waaye cabitaanka saasaan kusoo dhameeyay. waatana asxaabay kulli waa soo diyaariyay. ii soo dhawaada asxaabta qaaliga. maasha Allah. oo ku faraxsanahay la joogeena maasha Allah. kuweena cusubana ii soo dhawaada maasha Allah. asxaabay subscribe haddii aad hore nooga sameynin subscribe insha Allah. like share commentigana waa xagiina. mar walba kusoo dhawaaw Umu Masbel Cooking Channel. السلام عليكم.